بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصحابتا waxaan halkan ka gelayaa insha Allah casharkii labaad ee Binance ku saabsan ayaan sii wadaya insha Allah maanta taariikhdu waa bishii lixaad 24keedii 2019 marka casharkii labaad oo ku saabsan weeye sida looga adeegto suuqa Binance la yiraahdo ee ah suuqa ugu weyn ee maanta lagu kala gato cryptocurrency-ga marka saan hore usoo sheegnay suuqan ilaa 300 oo coin ku dhawaad ayaa yaala ilaa 300 oo lacagtan cryptocurrency ka mid ah casharkiinii ugu dambeeyay waxaan soo marnay yara sharaxnay depositka iyo qaybtan withdrawalka waan aan niri deposit waxaa loola jeedaa marka aad suuqan Binance akoonka aad ku leedahay aad u soo diraysid coin ama cryptocurrency oo aad rabtid inaad Binance u soo dirtid kana soo diraysid meel kale ayaa deposit la yiraahdaa withdrawalkuna waa markaad isaga ka diraysid suuqan ka diraysid ee meel kale u diraysid waaye marka lacagahan cryptada waa la isku diri karaa qofku suuqan Binance uu ka diri karaa suuq kale uu u diri karaa oo isla crypto lagu kala gato wuxuu u diri karaa website kale oo wallet uu ku haysto sida blockchain.com oo kale ama Chax oo kale ama Turbo ama Exodus meelaha walletyada lagu haysto kale u diri karaa meelaha walletyada lagu haysto dhanna uu ka soo diri karaa Binance uu soo diri karaa marka lacagtan crypto markasta waa la isku diri karaa meel kasta la isku diri karaa macnaheedu waxa weeye kale in qofku iska hubiyo walletyada addressadooda inuu iska hubiyo baa muhiim ah marka deposit oo kale saniri koon baa soo diraysaa halkaan oo soo diraysaa waxaan niri koonka dooranaysaa aad soo dirsanaysid oo Binance u soo diraysid matalan hadduu aada uu yahay ama Cardano lagu magacaabo hadduu kan yahay adresskaasaa koobiyeysanaysaa waa qaadaysaa copy address baa dhahaysaa kadibna markaasaa tirahdid copy successful buu kusoo qorayaa waa koobiyeysatay adresskii muhiimaddu waxaa weeye nambarada ugu dambeeya inaad xifdisid adresska iyo kuwa ugu horeeya ama meel ku qoratid saad u hubisid adresska aad qaaday inuu adres sax yahay oo aada ay leedahay sababtoo ah adres ma qaato lacagna lacag ma qaadato wallet ma qaato aada haddaad dirsanaysid waa inaad meesha u diraysid aad siisid adreskan marka asaa u koobiyeysid adresskaaga dabcan meesha aad kasoo diraysid ayaad siinaysaa adreskan kadibna halkaan lacagta ku imaanaysaa withdrawalku marka waa lamid sidoo kale haddaad rabtid aadoo kale maalan inaad ka dirsatid halkaan Binance oo meel kale u dirtid meesha u diraysa adreskeeda u baahanta soo maayadana waa kana adres halkaas gelinaysa meesha banaan adreska qoranta yani meesha u diraysid adreskii aada soo qaaday halkaana gelinaysa halkaana waxaa gelinaysaa lacagta aad diraysid aada inta xabo aad diraysid halkan gelinaysaa maximum haddaad taabatid macnaheedu waxa waaye intaan hayo dhan iga dir waa fiiguna ujeedaa hal aada ayay kaa qaadanayaan halkii marka waa lacag yar hal aada hadda waxay u dhigantaa aan malaynayaa lacag 9 senti meelahaas 10 senti ku dhow weeye marka inta kastoo diraysid intay doonto ahaatee intaas laga qaadanaya fiigaas hal aada saan filayo bas adreskaas halkan soo gelinaa u diraysid kadibna waa diraysaa marka halkan waxaan ka fahanay markastoo aad lacag aad Binance usoo dirsanaysid deposit baa taabane adreska qaadane xagga geene waa soo diray markastoo aad Binance lacag koon ka diraysidna withdrawga taabane adreski meesha u dir lahayd baa soo qaadane halkaana keene waa dire taasaas u fahno marka diridaas iyo soo diridaas waa wax ku saabsan coinanka ama lacagaha lagu haysto lacagaha markaan leeyahay waxaan ka wadaa cryptocurrency saas u faham waa cryptooyinka lagu haysto Binance ama haddaad cash Binance u soo dirsanaysid ama aad ka diraysid lacagaha cashka dollarka oo kale ah dollarka caadi waa naqaanay ah taasu waa inaad koonkaaga ku xirataa banki banki Binance way ogashay marka bankan qofka inuu ku xirto banki dadka Europe iyo North America iyo meelaha jooga iyo wadamada intooda badan way u ogashahay Binance laakiin nasiib darro dadka Soomaaliya jooga oo may ogolaan inay banki ku xirtaan sida daraaddeed saan hore usoo sheegnayba dadka Soomaaliya jooga ama meelaha qaarkood Mali oo kale iyo jooga looma ogola inay banki ku xirtaan waa inay cryptada halkan Binance sida kaliya ay
wax u keeni karaan waa inay kiribto kale keenaan wey. waxaan u malaynayaa qodobkaas in si fiican loo fahmi karo ayaan rajeynayaa. Okay, waa ka gudbaynaa qaybtan dhexe saan hore usoo sheegnay. waxaa la yiraahdaa waxaan fiirinaa qaybtan gainers and losers. gainers saan hore usoo sheegnay waxay soo taxayaan lacagaha faa'iiday 24 saac lasoo dhaafay lacagta ugu badan faa'iiday, taasaa ka mid ah 22 boqolkiiba, taasaa ka mid ah 15 boqolkiiba. shanta lacagood baa ugu badnaaya 24 saac ee ugu dambeeyay ugu faa'iido badnaa. losersku waa lacagahaas ayaguna lacagahaas ugu khasaaro badnaa, waa kuwa khasaaraha badnaa 24 saac lasoo dhaafay iyo mid walba intuu khasaaray. kan ugu koreeyay 26 boqolkiiba buu khasaaray. saasaa marka laga wadaa. inta haddaan ka gudubno waxaan u gudbaynaa hoos qaybtan marketska oo hoos ku qoran ayaan gudbaynaa. waxaan caawa marka sharixi doonaa insha allah qaybtan marketska iyo traderska labadaasaan sharaxaynaa. labadan qaybood hoose waa qaybaha qofka khaaska isaga u ah, marka isagu inuu cidna iska tusa maaha. labada qaybood funska saan hore soo sheegna waa qaybta lacagtaadu ay taallo, waa ka arki doontid lacagta kiribtada kuu taalla lacag ahaan intay u dhiganto dollar ahaan ayaa meesha ka arki doontaa, iyo bitcoin ahaan intay u dhiganto, iyo weliba lacagta magaceedii iyo laftigeeda inta xaba ka haysatid, kiribtadaas inta xaba ka haysatid waxaa meeshaas ka arkaysaa. qaybta akoonkuna waa qaybta guud ee qofka akoonkiisa dhan uu ku saabsan yahay, oo settingkii ku jiro, oo emailkiisa uu ku jiro, oo waxyaalo badan ay ku jiraan wey. marka laakiin labada qaybood taaban mayna. labadan qaybood hore ayaan insha allah bal caawa falanqeyn doona insha allah. marketkaan ku dhufanaynaa. saan hore in kuu sheegan waxaan ka gelayaa telefoonka abkiisa, laakiin markaad ka gelaysa website-ka suuqa Binance saan wuu ka qurux badan yahay, aad buu qurux badan yahay maasha allah. waad ku yacni ina daraandaraysaa oo ku nasarcaadaysaa yacni quruxda ka muuqata iyo lacagahaas badbedelaya iyo suuq weyn ugu egyahay. oo yacni marka waxaan in kugu baaqayaa abku waa fudud yahay, wax ku fiican yahay isaga telefoonka, si sahlan baa lacagtaad halkan ugu maamulanaysaa abkaaga telefoonkaaga. laakiin inaad website-kana booqatid oo binance.com intaa ku qortid aragtid bal lacagahaas ay u kala shaqeynayaan iyo shaashada marmarka qaarkood aad ka aragtidna way indhahaaga u ronta. marka inaad booqataan weye. waana hadda korna waxaan ii sheegay waxyaalo badan baa ka buuxa website-ka oo afka uusan lahayn, oo ay ka mid tahay cilmi iyo waxbarasho fara badan oo ku saabsan cryptocurrency. xataa waxaa ku jira wax la yiraahdo terms ama terminology ayaa ku jirta. terminology waxaa weeye ama terms oo yacni waxaa weeye erey bixinta loo adeegsado kiribtooyinka ayaa ka buuxa. ilaa iyo waxaan u malaynayaa imin saaxiib 170 haddaan khaldanayn termi 170 erey oo erey bixin oo kiribto loo adeegsada meesha ka buuxa. binance.com website-ku haddaa gashid oo arki doontaa wax loola jeedo. qofkan inuu barto cryptocurrency-ga erey bixinta loo adeegsado waa muhiim wey, haddii kale waa ka dhacsanaanaysa wax fara badan. halkaas marka lagu laabto website-ka, laakiin abku waa isaga laftigiisu waa kaasa waa laga qurux badan yahay, laakiin isagu waa ku sahlan yahay. abka marka waxaan taabtay marketka waxaa weeye suuqyada waaye. waa suuqyada noocyadooda kala duwan ee lagu kala gadanayo kiribtooyinka yaalla Binance. suuqa koowaad waa suuqa BNB waaye. suuqa labaad waa suuqa Bitcoin. suuqa saddexaad waa Alts, waan arki doonaa Alts waxay tahay. suuqa afraadna waa USDs ayadana waxay tahay arki doonaa. afartaas suuq baa marka jira. marka waxaa laga wadaa lacagaha kor saaran afartaahi waa lacagaha keliya ah ee beer u noqon kara, ee beer u ah, yacni waxay beer u yihiin oo lagu gadan karaa lacagaha kale kiribtooyinka kale. micnaheedu waxaa weeye ilaa 300 ku dhawaad oo kiribto ayaa suuqan hadda taalla Binance. 300 ku dhawaadka kiribtooyinka yaalla ama waa inaad BNB ku gadataa ama Bitcoin ama Alts, oo Alts waxaa looga jeedaa XRP oo ah Ripple iyo Ethereum, labadaas bis waaye Altska. ama inaad Ethereum iyo XRP ku gadataa ama USDC lacagaha doolarka u dhigma aad ku gadataa stablecoin-ka la yiraahdo. waan sharixi doonaa ayagana. afartaa qaybood unbaa ku gadan kartaa lacagaha 300 ah ee meeshan yaalla, oo afartaa mid ka mid ah bay beer u yihiin, ama laba ka mid ah ama saddex ka mid ah ama ayagoo dhan bay beer u yihiin. marka macnaheedu waxaa weeye PNB haddaan hadda taabano, PNB waaba noo taabsan tahay. waxaasoo lacagood baa ku lamaan soo maarti waa beer u tahay. lacagta hore waa lacagta weyn, lacagta BNB dana waa taa dambe soo maarti beer u tahay. BNB waa tana BNB
soo maarti BNB waxaasoo lacagaa marka BNB ku lamaan yihiin. marka kiribtooyinka lacag waxaan ka wadaa mar labaad aan kugu celiyo kiribtadan ka wadaa la socda halkan taalla. waxaasoo kiribtaa oo magacyada kala duwan leh BNB-ga ku gadan kartaa. waa kaasa BNB-ga ku gadan kartaa. haddaa marka suuqan kiribta ay kugu jirto matalan EOS iyo BNB waa isku gadi kartaa labadooda. adoo EOS haysta BNB waa u bedeli kartaa, adoo BNB haystana EOS waa u bedeli kartaa. saasa laga wadaa beerka iyo in la isku gadan karo. ayib bitcoin-ka aan aragna isagana. bitcoin-ka waxaa ku lamaan lacagahaas oo tirada badan. waa kaasa BNB baa ugu horeysa. BNB haddaba aan ii sharaxay waa Binance Coin. Binance Coin weeye. Binance Coin ayaa BNB laga wadaa. waa coin ama kiribto uu iska leeyahay suuqan Binance la yiraahdo. nimanka iskale ayaa samaystay, waana kiribto u shaqeynayso hadda qaali ah oo joogta $37 $38 ba halkii xabaada jooga baan filaya. waa qaali. BNB baa la yiraahdaa. marka bitcoin wuxuu ku lamaan yahay BNB, Ethereum, soo maaragtay BNB buu ku lamaan yahay, Ethereum buu ku lamaan yahay bitcoin-ku, XRP oo Ripple ku lamaan yahay ilaa iyo dhammaadka. intaasoo dhan buu ku lamaan yahay isaguna lagu gadan karaa bitcoin. bitcoin baa ugu badan baan filayaa lacagaha halkan yaalla suuqa halkan kiribtooyinka yaalla. waxa ugu badan ee wax lagu gadan karaa waa bitcoin-ka. intaasoo lacagoodba inkaasoo kiribtaa ku lamaan. BNB laftigiisa ma sahlanen. Altiskan tagaynaa. Altisku waxaa laga wadaa ereyga alts waa erey bixin laga wado waxaan bitcoin ka ahayn. alts waa alternative haddaan ansaxayo English ahaan, ama alternatives baa laga wadaa. alts saasa loo soo gaabiyey. waa kuwii badiilka u ahaa. waa waxaan bitcoin ahayn weeye. kiribto kasta oo aan bitcoin ahayn wax lagu magacaaba alts. kiribto kasta oo aan bitcoin ahayn wax lagu magacaaba altcoin baa maqlaysa. altcoin waxaa laga wadaa kiribto aan bitcoin ahayn. marka altiska imise lacagood baa ku jira oo ayagana beer ah. wax lagu beergarayn karaa, wax lagu gadan karaa. waxaa ku jira tan XRP oo TRX ku beergaraysan, XRP oo XZC ku beergaraysan, iyo inta kaleo Ethereum. marka laba lacagood baa haysataa, XRP iyo Ethereum baa altiska oo dhan hadda ku beergaraysan. ayagana alts hadda lagu magacaabay. alts ayaa lagu magacaabay, laakiin ayagu waxay ku beergaraysan yihiin lacagaha kale. XRP labada lacagood basay beer ku tahay, inta kalena waa Ethereum. haddaa u fiirsada Ethereum lacagahay beerka ku tahay fiir. waa Ethereum lagu gadan karo. waa kaasa Ethereum intaasoo lacagood baa lagu gadan karaa. bidixda fiiriya idinku bidixda. magacyada waaweyn oo xarfaha cadcad ku qoran waa lacago, waa kiribtooyin magacyadood weeye. Ethereum baan ku wada lamaan. way badan tahay, aad bay u badan tahay. haddaan in fahansiiyo qofkaan aqoonin maxaa laga wadaa lacagahan kore besaa beer u ah. maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa afarta lacagood besaa beer ka dhigan kartaa. waxaa laga wadaa ama haddii 5 ay noqdaan ilaa tanaa 2 XRP iyo Ethereum shantaa lacagood iyo kuwan laftigooda ayagoo dhowr xab u kala baxaya. intaas lacagood besaa beer noqon kara. waxaa laga wadaa yacni matalan tan ugu horeysa hadda fiiri Storm iyo LRC labadooda laiskuma gadan karo laana beer iskuma ah. labadan lacagood hadda laiskuma gadan karo. saasaa laga wadaa macnaha. labadan laiskuma gadan karo, labadan laiskuma gadan karo, kan laguma gadan karo. kaas ayagu beer iskuma ah. laakiin kiribto kasta waa inay afartaa mid kamida beer u ahaataa oo lagu gadan karaa. waxaan malaya inaa si fiican ii fahantay. okay altiska waan soo aragnay. Ethereum iyo XRP wey. USDC gaan tagayna. USDC haddaba waxaa laga wadaa lacagaha stable coinka la yiraahdo wey. lacagaha markaan leeyahay waxaan ka wadaa cryptocurrency-ga. waa kiribtada stable coinka ah. stable coin oo micnaheedu yahay coin xasilan oo degan oo laga wado kiribto aan $1 ka badnaanin wey. waxa u dhibatay ku haynaysaa. haddaad Ethereum u dhibatid hadda fiiri USDT oo kale Bitcoin bay ku lamaanta. haddaad u dhibatid Bitcoin u dhigma $8,000 u dhigma meeshaasay kugu haynaysaa. weligeedba lacagtaas 8,000 bay ku ahaanaysaa. halkaas iska ooleysaa ilaa adigu aad ka soo saartay USDT-ga ee kuwan kale ku gadid kiribtooyin kale ku gadatid. marka stable coin saas loogu bixiyo
mid kastoo USDC-ga ka mid ah wuxuu u dhigmaa $1 ayaa banki u yaala, waxayna sheegteen in lacagtaasu banki u taalo, saa daraaddeed halkii kiribto uu u dhigmo $1 oo banki u yaala oo backup u ah. waxaan malaya in la fahmay. imise xabo wey marka stable coinsku ilaa 4 xabo baan malaya Binance inay hayaan, ta ugu caansan oo adduunka aad u isticmaalo laakiin hadda aad looga cabsi qabo aan kula talin lahaa Soomaalidu inay ka fogaadaan waa USDT, waayo waa isku haysi badan, isqabsi badan baa ka jira. lacagta bankiga ugu jirta false wayaa laleeyahay, lacagtan ay soo daabacdeen oo coinska ahi in la eg banki uguma jirtaa laleeyahay. in badan baa la dacweeyey. ninka qareenka ugu weyn ee maxkamadaha Mareykanka soo dacweeyey maalin dhaweyto, maxkamad baa ku socota marka inay ka fogaadaan way USDT-ga, laakiin ka mid waaye USDT, USDC, waa tirtiratan USDS iyo TUSD iyo Pax. afartaas kiribto oo coin oo stable coin bay hayaan Binance halkan ku hayaan saan filayo. afartoodaba taa doontaa lacagtaada u bedelan kartaa, waana meelaha qofka ay ka anfacayso markii uu rabo inuu suuqan ka baxo Binance uusan rabin inuu ganacsi uusan rabin markaa inuu maaragtay trading sii sameeyo ama lacagtiisu ay suuqa sii taalo. ilaan haddii lacagtaadu taalo lacagahan ay ka mid tahay oo ay altis tahay oo tan tahay lacagtu markaa marna korba u soconaysaa, marna hoos ba u soconaysaa, marna korba u soconaysaa, mar waa qaliyoobe, mar waa raqiise. qofka hadduu saran marka lacagtii intuu iska faa'iiday oo kale mathalan uu rabo mar dambe chance dambe inuu gaado lacag raqiisa inuu dib u gato, lacagtiisa wuxuu bedelanaya USD siyaasa mid kamid u bedelanaa, dollar ahaan baa loogu haynaa, halkaas u ooleysaa, ismana bedelayso. waa wax la fahmay. marka imisa xabaa ku jirta USDT waan fiirinayna. USDT waa aragtaan USDT baa tan ku lamaan tahay, tan USDT ku lamaan tahay, kuwaana ku lamaan yihiin. hoos hadaa u degto waxaa arki doontaa stable coinyadoo kale USDC soo ma aragti, Bitcoin ku lamaanta. Pax soo ma aragti waxay ku lamaantahay Bitcoin. okay, TUSDT oo True USD baa lahaa, ayaduna waxay ku lamaantahay Bitcoin. afartii lacagood marka saas ugu kala lamaan yihiin, teebaa ugu badan oo lacagaha ugu badan ugu lamaan yihiin waa USDT-ga. tan ayaa lacagaha ugu badan oo loo bedeli karo dollar ahaanta, oo kiribtooyinka halkan yaalahay ay ku lamaan yihiin. waxaan malayn ilaa iyo 22 ma huba intay runtii ahaayeen, 25 meelaha miyay ahaayeen, aduu 22 baa ku lamaan USDT-ga baa loo bedeli karaa macnaha. laakiin kuwa kale oo way cusub yihiin, way iska cusub yihiin kuwa kale oo mathalan USDC-go kale waa cusub tahay, waxaa laga yaabaa in 10 lacagood kaliya loo bedeli karo. Pax ayadu waa iska cusub tahay, TUSD waa iska cusub tahay. marka USDT-ga caan noqotay in badan loo bedeli karaa. marka haddaa rabtid lacagtaada inaad ku haysatay USDC mathalan, aadana ay lacagtaadu ahayd lacagtaadu waxay ahayd leesay aada ama EOS bay ahayd. EOS hartaa inaad u bedelisid USDC kumana lamaana, maxaa samaynaysaa? waa inaad raadisaa lacag kale oo USDC ku lamaan sida Bitcoin oo kale. waa inaad Bitcoin gadataa, halkan ka dhex gadataa markiiba, kadibna Bitcoin-ka u bedelataa USDC. waxaa malaya inay fahanteen, yani kor baa kasoo laabanaysaa, laanna si toosa aad EOS kuma lamaana USDC, laakiin waxay ku lamaantahay USDT bay ku lamaantahay. marka USDT ma rabtid, laakiin waxaa rabtaa USDC. marka waa inaad kor kasoo wareegtaa, waa inaad lacagtaada EOS u bedeshaa Bitcoin, kadibna Bitcoin usoo bedeshaa USDC. waxaan malaynaya inaad si fiican ii fahanteen. casharkan waxaan ka tegay ma u malayna inuu jiro. hal mar waxaan ku darayaa qeybta hoose traderska meesha ku qoran tahay. halkan haddaba waa meesha ay taalo lacagaha trading meesha laga sameeyo, meesha ganacsiga laga sameeyo trading, waa meesha trading laga sameeyo. haddaa rabtid inaad trading sameysid, halkaas waxaa ku qori kartaa lacagtaa rabtid nooceeda. Bitcoin haddaa ku qortid, lacago badan buu ku lamaan yahay, saan hore u sheegnay. haddaan soo qaadanay Bitcoin iyo BNB oo isku lamaan, oo BNB haysatid, halkaana imaanaysaa. kor fiiri, kor markaa fiirisid labadoodii isku lamaan soo maaragti, beer isku ah.
macnaheedu marka waxa weye suuqan hadeertaan waa suuq bitcoin iyo BNB laisku gadayo wey. haddaa marka adiga haysatay BNB kasoo qaad haysatay oo bitcoin u bedelaysid, bitcoin gadanaysid buy baa dhihin. haddaa buy baa dhihin bitcoin, waxaan ka wadaa maya sell baa dhihin baan filayaa. waan arki doonaa horta waxay tahay, haddaan arki doonaa. buy baan iri, buy baan iri, waxaad ku diyaara bitcoin. soo maarti bitcoin baa kuu diyaara, halkaas ku qoranta. intaasoo bitcoin baa kuu diyaara 0.0000101 BTC ayaa available ku ah. taas waa available baa laga wadaa, diyaar ku ah. maxaa rabtaa inaad ku geetay BNB baa gadanaysaa markaan. marka buy baa tiri, macnaheedu bitcoin baa watay, BNB buy baa leedahay. intaan saas dhihin marka waxaan filayaa casharkan inaan ka doobi doono insha allah. waxaan rabaa inaan intusiyo halkan. may casharkan waan joojinaya, ugu dheeraaday. waxaan ka baqaya inay kala dheer codka uu kala dheeraado videoga, saa daraadeed waan joojinayaa. video kalaan ka doobi doona insha allah.